السلام عليكم maanta waxaan ka hadli doonaa cibaadooyinka aan cibaadaysano cibaado runtii u ah laf dhabar aad u muhiim ah cibaadadaas oo ah hubka kaliya ee maanta qofka muslimku uu haysto kuna dagaal gali karayo hadaba cibaadadaasi waa tee cibaadadaas waxa weeyaan waa ducada waa markaan ilaahay wax weydiisano runtii cibaadadaas waa cibaadada ugu qaalisan laf dhabarna u ah cibaadooyinka aan cibaadaysano hadaba alla weyne waa deeqsi ka xishooda qofkii gamcihiisa kor u taaga allana wax weydiista inuu gamcaha faramanaan uu alla ku soo celiyo way alla ayaa leh ibarya aan iniga ajiibay oo micnaha aniga aqbalay ibarya aniga hadaba maanta waxaan ku eegi doonaa muuqaalkeena maanta inii wado ducadu muhiimadda ay leedahay in ilaahay la baryo muhiimadda ay leedahay aadaabta ducada shuruudaha ducada lagu aqbalo waxyaabaha ka hortaagan in ducadaadii la aqbali waayo xilliyada ugu muhiimsan ee ducada la aqbalo iyo goobaha ugu muhiimsan ay tahay inaad ku ducaysatid ayaan maanta muuqaalkeena ku la fadhigi doonaa ee ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta hadaba sidaynu ogsoonahay waxa maanta inoo curatay bishii barakaysaneed ee Ramadaan waxaan ognahay inay tahay bil la sugo in ka badan 12 bilood bishan waxay tahay bil aad iyo aad u qiimo badan qofka sooman ee Ilaahay dartii u sooman ee afiis Ilaahay dartii u qalalan yahay ducadiisu waa maqbuul waa la aqbalaya Ilaahay baana sidaa yiri ducada qofka sooman waa lama celis aynu ka faa'iideysano bisha Ramadaan ee barakaysan inaan aad iyo aad u ducaysano hadaba su'aasha koobaad ee isweydiinaysa waxa weeyaan maxaynu u ducaysanina maxaynu horta u ducaysanina waa su'aasha ugu horeysa hadaba sababta u ducaysanaysa ducadu waa cibaado wana laf dhabarta cibaadada Ilaahay ayaa jecel oo la weydiista aan nisiye Ilaahay ayaa jecel mar walba la baryo ducadu waxay ka xijaabaysaa masiibooyinka ugu soo socda ducadu waxay sababaysaa inaad noqotid qof wanaagsan oo xiriir fiican alla leh ducadu waxay xoojinaysaa tawxiidkaaga yaqiintaada ayay xoojinaysaa ducadu waxay daboolaysaa baahiyaadkaaga adduunyo iyo kuwaaga aakhiraba oo runtii marka Ilaahay baridid oo dibdhaaf weydiisatid baahiyaadkaagii oo dhan waa laga daboolayaa hadaba aynu ogaanay inay ducadu tahay cibaado waqtiyo waxa jira ay ducadu muhiim tahay inaad ducaysatid oo waqtiyo la aqbalo ah horta qofka sooman ducadiisu waa la aqbalaya xilligu aftiranayo ducadiisu waa la aqbalaya xilliga suxuurta ducadiisu waa la aqbalaya xilligu salaad walba tukado oo faralana kabacdis waa la aqbalaya xilliyada la aqbalayo habeenka leeytu qadriga ducada waa la aqbalaa salaad wal oo jamco kabacda tukatira ducada waa la aqbalaa eedaamka yaqiinka dhexdooda ducada waa la aqbalaa sidoo kale markuu diiga uu ciyo malaa'ig baa soo degta ducada waa la aqbalaa xilli roobaadka ducada waa la aqbalaa hadduu waalidka ku duceeyo ducada waa lagu aqbalaya xilliyadaas oo dhan waxa muhiim ah inaad ka faa'iideysatid ducada waa la aqbalaa jimcaha galikiisa daba labada saacadood dambe in masaajiga iskaga itikaafta waxa ku jirta saacad kamid saacadaas oo shaki waliba ku jirto laakiin ducadaada waa la aqbalaya iyaduna waa maqbuul xilliyadaas oo dhan inaad ilaashataa aad bay u muhiim tahay bisha barakaysan ee Ramadaan waliba inta lagu jiro hadaba goobaha ugu muhiimsan oo qofku tahay inuu ku ducayso goob walba isagoo ducada laga aqbalay laakiin gooba aad u si muhiim ah jira waxa lagu aqbalaa goobaha masaajidka oo Ilaahay jecel yahay goobta xaramka iyo masjid aqsa meelahaasi ducada horta aad bay maqbuul tahay laakiin meel wal oo joogtid waad ku ducaysan karaysaa iyadana hadaba shuruudaha leedahay ducada lagu aqbalo oo shuruudaha qofka aan lahayn ducadiisa laga ma aqbalayo waa in horta qofku Ilaahay u bariyeela ducada uu bariyo Ilaahay waa inuu u gaar yaraa oo Sheekh Cabdiqaadir iyo Sheekh Hebel baa wakiilanayaayo iyo wakiil waa inuu Ilaahay toos u bariyo sidoo rasuulkeena soo banaa inagu yiri hadii aad cid bariyeysaan alla oo kaliya toos u bariyo inaad ducada aad bariyaysid Ilaahay aad yaqiinsan tahay inuu ka aqbalayo inaad si dhabaana ay kaaga go'an tahay ducada ducaysanaysa oo malaa'awali waxa ka yahay soo kalena in aad huga xidhantay iyo cuntadaad cunaysa labaduba ay xalaal yihiin maalmo dhaweedna waxayna dhexmaraysa sheeko ahayd qofka haduu $10,000 oo xado uu xashka ka tago xashkiisaas oo ansaxay xashka muhiimadda loo tagaya intaas oo safar loo maraya waa inuu Ilaahay ku soo dambi dhaafo waa inuu Ilaahay ku naxariisto waxaad u baahantahay jannada waxaad u baahantahay adduunyada ku siiyo aakhirana waxaad u baahantahay jannatul firdaws inuu ku siiyo hadii taaba aan laga aqbalay maxay lacagtaad hadii xashka ku tagtay aad isticmaashay maxay faa'iido ku soo kordhinaysaa in lacagtaad hadii si kala aad u isticmaashid baa lagu qaatay sheekh tirro waa naga jaahil saaray ilaa Allah ka abaal mariyay
كدكتونادا وحيابها حارانتا أو دن دعاء لغما أقبله وين كديراتا هذا أسباب باجرة دعاء لغوا أقبله أسبابها وحكم دورتين إخلاص له وسميسيد إن عنا حلال أنتد سدوا كلنا إن والدك أسمى فشيد سدوا كلنا حريرك قرابة أحوجسيد إن الله مقعد يسوقون أحسن أتكبرديد إن سدوا كل حلية وقول مناسب سنة دعاء لا أقبله هذه لا هي برديد إن الله كمل يسنى ملون أحسن وحيابها صرنا وحي سمعنا يعني إن دعاء لا أقبله هذا بس وقتيada ugu fiican ugu muhiimsan aad tahay inaad ducaysato oo waqtiga sujuuda lagu jiro oo saddexdii ducay ugu qaalisala Allahumma inni as'aluka husna al-khatima Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik Allahumma arzuqni tawbatan nasuh qabla al-maut saddexaad ducana ina sujuuda ku asiibtaa iyaduna waa wax aad u fiican hadaba su'aashan hore ma isku weydiinaysay oo ma lahayd Allahayo in badan ayaan ku bariyay ashyaada aan adduunka ka rabo inaan hogaamiye fiican noqdo inaan noqdo dhakhtar inaan noqdo engineer inaan noqdo waxaas inaan hamigaas ii fududaado ilaahu in badan baa ku weydiisanayay ducadaana layma aqbalin إلهه الصواب خرس عشان مسكوي دينسه هذا بدو على هذا صدق شيء أي الله كلا صار مركز إلهي ويدي ستيد دو على هذا من إمك الله أقبل هو حق بهانت إمك هذا فرت لقى صار كو إن دبعت بوسو سعتي إن الشل كل من يسد إن وحكر كل من يسد إن نصيبه وينه حافظين وقبا بائسه وحيابه وينه بوسو سعتي دو على دو عيستين كاحد شابته يصدق كلنا ما أنت آخره حسنات بدن أتكوي شد ودو على هذا ما أنت آخره دي بلوغ وقدره تحسر ويود على هذا بقى وحق hadaba ilaahay maxaan weydiisanaynaa waa su'aal iyaduna aad u muhiim ah dadku inay isweydiiyaan ilaahay maxaa weydiisanaysaa hadaba wax wal aad u baahantay ilaahay waa weydiisanaysaa oo adduunyada hadaad maal u baahantay waa weydiisanaysaa sawja saalixaad u baahantay waa weydiisanaysaa ubad hadaad u baahantay wixii niyadaada ku jiro oo dhan waa weydiisanaysaa laakiin wax waaweyn ha ahaadaan oo wax weyn iyo wax yarba waa weydiisanaysaa laakiin hamiga wax weyn ha ahaado sidoo kalena ilaahay maalinta aakhiro maxaad weydiisanaysaa inaad jannatul firdawsa uu ku geliyo oo rafiiq la dhigo nabigaagi maxamed iyo dadkii saalixiintii iyo asxaabtii ayaad weydiisanaysaa oo دعوينك وقال سنة كلا ورنس اللهم اكفني بحلالي عن حرامي واغنني عمن فضلك عمن سواك واغنني من فضلك عمن سواك دعوينك هاسو كلا بابليك أنا واتكو دعوي سنة سامعنا دعوينك قوب سنة الدنيا آخرة هذا بوا حيابها ومهم سنة دعوينك ومهم سنة وكل مهم سنة والدعاء قصة أرورتي القرآن كينا سيد ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير النبي الله والموسى كدعي سنجري يدعوينك النبي جني سوبنا وكدعي سنجري اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا الصبح والبأسي بجري دعوين كاسو كلا يدعوين كالسالح دتك سالحين تأي كدعي سنجرين ودعوين كوفي عن القف كدعي سدعوين كقرآن كسو أروريق وحيابها صدر هذا شروطك لا سيجري الدعاء إنه قفك أرتوي سقبه مركز دعي سنية إنه إلهي وأمانه ورنتي مقعدي هو وين إلهي كأمانه إنه نبينا الصوبنا صلى الله عليه وسلم وكسلي ومرك دعاء وفريسانية إنه دانك قبلة وجهسته إنه نعدك سكر وقاعدين وهاس إسكج دعايسته أو إلهي ومقليا لو قضوا البنو إلهي كبريا عربي وشرط سيماها إنه قرد بيدي وكسر دعاء وإلهينا وقطعبت كانوا إنه حتى هذه إنه هنتو هين إنه إسكوه يسوع إلهي وموجه خشوع وخشوع لابتك إيمانسا وتدبرك دعاء كروسي قادسا إن دعاء والبوصدح شاركوا عليه دعاء كتير مهم كنا إنه سكر إنه جمعيه سكر وتاجم مدحيسنا هو صفورية إنه دعاء يستو إنه دعاء إنه كل دور شاركوا عليه دعاء أيا يدنا مهمة inuu u duceeyo hadaba naftiisa marka hore uu ka bilowdo dad yowga muslimka dhibaatooyinka ka jirto Falastiin meelaha Soomaaliya dadkeena dhibaataysan oo dhan inuu u duceeyo walaalaheena muslimka oo dhan uu u duceeyo ayaa iyaduna muhiima inuu ku soo afmeero saliga rasuulka saligeena rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa iyaduna aad iyo aad u muhiima oo adaabta ducada kamid ah إن شاء الله برنامج كنا ما أنت تسنكسو أخبار دونا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.